markii aan wax ka sheego sababta aan u aas-aasnay ama aan u aas-aasay hay-adda Al-Mustaqim Foundation sababaha waxaa ka mid a waxaan ognahay in ay waddanka mataqaanaa ay ka jirto dhibaato badan oo caruur badan ay joogto oo mataqaanaa gobollada iyo caasimadda intaba annagoo ka damqanayno ama aan rabno inaan caawino agoontaas wax u qabanno wax barno sidaas ayaan ugu kaliftay inaan hay-addan aas-aaso hay-adda hadda inta ay jirto weliba waxay jirtaa 8 bilood laakiin si kale haddii loo fiirsho waxay jirtaa 8 sano in muddo ah ayaan ka fikirayay in aan aas-aaso haddana waa ku guulaystay sidaas ayaa hadda waxaan u qabanay waxaa ka mid a waxaan ka bixinay ama aan ka bixinaa qarashka iskuulka iyo mataqaanaa inaan u iibino dharka iskuulka uniformka qalmaanta iyo buugaagta aan u gadno ilaa iyo hadda 20 iyo waxaan haynaa 3 agoon dhinaca kalena waxaan haynaa codsiyo badan oo gaarayo ilaa 150 oo iskuulaadka gobollada qaar afgooyo kale iyo magaalada muqdisho naga soo gaareen ilaa iyo hadda waxyaalaha aan u qabanno ugu weyn waa waxaan ka bixinaa qarashka waxbarashada ilaa iyo hadda agoonta aan ka bixino iskuulka waa agoon waa u gudbi doonaa qoysaska danyarta ah oo aan awoodin inay carruurtooda ka baxshaan iskuulaadka annagoo mar kastaba ku xisaabtamayno ama ku xiran si aan u helno caawinaadda oo dadka maalqabeennada iyo dadka ilaahay wax siiye ay u baxshaan si aan u gaarno kuwa agoontaa iyo kuwa kale aan agoonta ahayn oo danyarta ah hadda aas-aaskeeda waa sida aad ka dhawaajisay dhibaatooyin badan ayaad la kulmaysaa dadka qaar ku dhahayaan adiga waa da-yar tahay hawshaan ma wadi kartid maxaa kugu kalifay maad carruurtaada iyo howlahaada kale maad iskaga mashquushid dadka sidaas ku dhahay waxaa ka mid a dad saaxiibada kugu dhow ama ehelka kugu dhow oo ku dhahayo hawshaan ma wadi kartid dhibaa kaaga imaan karo awooddeeda ma lihid iska dhaaf aniguna waxaan ku adkaystay inaan mataqaanaa aan hawshaan wadi karo oo loo baahan yahay dadka da-yartaa in ay waqti hore bilaabaan hawshaan si ay u wadaan ilaa waqti dheer ay u wadi karaan waxaa ka mid a dad saaxiibaday ah oo aan ka dhaadhacsii waayey hawshaan inay tahay hawl muhiim ahan oo u baahan in la qabto oo mataqaanaa carruur badan iyo dad badan oo masaakiina aan mataqaanaa la gaarno gurmadka dhinac kasto rag way jiraan iyo dumar i caawiyey oo ilaa hadda i caawiyo oo qaarna dalka dibaddiisa joogo qaar carruur kafaalo qaadeen qaar waxay ku sugan yihiin dalka dad ganacsataa ka mida oo weliba ballan qaadeen inay sakooyinka sanad kasta ay mataqaanaa hay-adda u qoonday doonaan sakooyinkooda qayb ka mida xafiiska hadda hay-addu ay ku leedahay magaalada muqdisho waxaa na siiyey oo si tabarucaad aha noo siiyey mid ka mid a ganacsatada soomaaliyeed oo mataqaanaa khayr aan ilaahay uga barinay in uu mataqaanaa xoolihiisa u barakeeyo ayaa na siiyey oo yidhi si lacag la-aan ah xafiiskan ayaan idinku siiyey furihiina nagu wareejiyey isla maalinta aan weydiisanay taas jawaabteeda gobolladoo dhan waxaan ka raadinaa dad khayrka jecel oo si volunteer ah shaqadan noola wadi karo maadaama hay-addu cusub tahay dhaqaale akoon ugu jirana aysan jirin gobollada waxaan kala xiriirnaa dadkii aan mataqaanaa hawshaan wadi karo ama aan isleenahay maadaama hay-addan ay ku dhisan tahay qalbi wanaag jacayl soomaalida iyo dadka masaakiinta aan jecelnahay waxaan raadinaa dad mas-uuliyaddian ka bixi karo markii aan waddanka joogno ama markii aan dalka dibaddiisa sida xafiiska labaad ee maraykanka aan joogno kale fariin culus ayaan rabaa inaan gaarsiiyo dadka mataqaanaa maalqabeenka ah iyo kuwa aan maalka badan haysanin maadaama ay awoodaan in ay kafaalo qaadaan hal cunug oo agoon ah oo bishii $20 iskuulkiisa qalinkiisa iyo buuggiisa ay $20 ka caawi karto $20 waa lacag intaad maqaayo tagtay aad ku qadayso weli wax ka yar haddii aad 2 tiin way idinku yaraanaysaa marka waxaan u baahannahay hadda carruurta aan hayno 8 ka mid a dad ayaa kafaalo qaadeen maraykanka iyo ingiriiska iyo Dubai joogo waxaan u baahannahay boqolayaal iyo kumanayaal inaan gaarsiino agoonta ay dadku kafaalo qaadeen inay gaaraan kumanayaal iyo boqolayaal waxba kaama dhibayso waa $20 taas waxay ku socotaa dadka aan xoolaha badan haysan oo shaqooyinka caadiga iska shaqaysto laakiin dadka maalqabeenka ah waxaan ka codsanaynaa annagoon dhibin oo mataqaanaa wax dhiba aysan dareemin ay waxay samayn karaan sakooyinka sanad kasta ay dhiibaan waa ognahay daruufo badanaa jiro siyaalo badan ay u dhiibaan laakiin qayb ayay uga qoonday karaan hay-adda Al-Mustaqim si ay howlaheeda u wado
dadka kale oo waxaa jira ayagana aan ka codsanayo maadaama ay isleeyihiin cabdixakiim waa nin da-yar hawshaan maxaa ku kalifay ma iska dhaafo hawshaan ma wadi kariyo mataqaanaa hawshaan laguma aamini karo waxaan u caddaynaynaa annaga wax kastoo aan qabanno waxay leeyihiin maqal iyo muuqaal carruurta dadka kafaalo qaado kale waxaan u sameynaa carruurka ay qaadanayaan cunuga ay qaadanayaan sawirkiisa iyo warqaddii laga buuxshay foomkii laga buuxshay ayaan siinaa filinjeerkaan ugu dhejinaa sawirka si subax kasta markay soo kacaan ay u arkaan sawirkii carruurta oo ugu dhegan filinjeerka ugana baahan $20 ilaa iyo hadda shaqada aan wadno inkastoo mustaqbalka aan rabno inaan meel ay seexdaan qadadoodoo kale carruurta agoonta waxaa waaye mararka qaar qada ma haystaan markay iskuul ka baxaan ayagoo gaajoonay ka baxaan ayagoo gaajoona yimaadeen waxaan u baahannaha dhar inaan u iibino waxaan u baahannahay inaan niyadda u dhisno waxaan u baahannahay ilaa jaamacaddooda inaan daba soconno laakiin ilaa iyo hadda $20 ayaa ku filan cunuga agoonta ah laakiin mustaqbalka dhow iyo kan fog qorshahaynu waxaa waayo inaan qado iyo ugu dari karno iyo dhar iyo wax kasta haddii rabbi ogolaado ilaa aan jiif ka gaarno marka codsigayga sidaas ayaa ka mida akoonna aan leenahay mataqaanaa hay-addu bangi kasta oo waddankan ku yaal akoon ay ku leenahay akoonnadaas ayaan soo bandhigi doonaa website aan leenahay la dhahayo www.almustaqim.org intaad gasho waxaad arkaysaa donation meel ay ku qoran tahay donate please meeshaasaad ku dhufa kartaa lacagta adduunka meel kastoo joogtid oo aad master card ama visa card haysatid ama credit card meel kastoo adduunka ku joogtid lacagaa noogu soo diri kartaa isla markii lacagtii mataqaanaa taxi message aan noo soo dhacay ama email lacagtaadi waa heli karnaa waana kula soo xiriiri karnaa